بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة وناكسن داوديالكو سدوادا برامج كفاقدات دورارك عالمك وربحندي الدنيا واد مالي والبقراهن وكلا كداوتان ورقات تيفي وانا سدح ذا بيش افراد مالي جمعة سنة كلاباتان إليه badabada aan idin soo gudbin doonana waxa ugu waaweynaa doona wararkii ugu dambeeyay ee Mareykanka uu guul darro weyn kala kulmay duqeymaha uu ku hayo magaalada Tehran iyo guud ahaanba wadankaas Iran kadib markii laga soo riday diyaarad dagaal oo aad qaali u ah waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Iran oo qaaday weerar gantaala oo kalena Yuhuudda iyo wadamada qaliijka waxa la beegsaday xarumihii tamarta ugu waaweynaa ee wadamadan warbixino ayaan idin haynaa madaxweyne Donald Trump oo jahwareer dhexda uga jira iyo xaaladda uu markaasi ka filayay wadamada isbahaysiga NATO ay ku wada jiraan oo si weyn isu bedeshay hadda Mareykanka wuxuu dhexda ugu jira dagaal uu markaasi ku sheegayo in looga kala baxay oo looga kala dhuntay dhamaan dhacdooyinkaas ayaynu falaqay doonaa iyadoo Shiinaha iyo sidoo kale Ruushku ay si weyn uga caroonayaan waxaha Mareykanka uu sameeyo ay dheer tahay in dunidu ay gashay qalqal dhinaca markaas sicirka saliidda ah oo adduunka halkii markaas litir meelaha qaar uu kor u dhaafay $15 qodobadaas aynu falaqay doonaa ama aynu eegi doonaa hadii weynaha inoo saamaxo hase ahaatee waxa aynu ku hormari doonaa dowladda wadankaas Mareykanka ayaa digniin xoogan siisay Yuhuudda iyadoo uga digtay inay beegsato xubno sarsare oo ka tirsan dowladda wadankaas Iran kuwaas oo suuragal ah in marka ay wada hadal la yeeshaan madaxweyne Donald Trump ama ay yihiin kuwa macquulka ah ee go'aan ka gaari kara in la soo afjaro dagaalka sida uu ku waramayo wargeyska Maarif ee Yuhuudda laga leeyahay waxa uu sheegayaa in Yuhuudda ay ka laabatay ama aysan xilliga damacsanayn in ay bartilmaameysato xubno uu ka mid yahay hogaamiyaha sare ee wadankaas Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei iyadoo la raacayo go'aanka Mareykanka uu ku ilaalinayo dhammaan shakhsiyaadka caanka ee reer Iran gaar ahaan marka la wajahayo weerarada waaweyn ee lagu qaadayo gudaha wadanka Iran waxaana Mareykanka ku arkaa xubnaha uu ka mid yahay Mujtaba Khamenei inay furo noqon karaan heshiis lagu soo afjarayo colaadda bariga dhexe sida laga soo xogtay wargeyska Yuhuudda Mareykanka wuxuu markaasi daray fariin cad oo ah in aysan bartilmaameysan doonin dhowr shakhsi oo caan ah oo reer Iran oo ku jiraan Mujtaba Khamenei iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi iyo afhayeenka baarlamaanka wadankaas Iran Mohammed Baqir Qaliba kuwaas oo dhamaantood ku jira liiska xubnaha firfircoon oo Mareykanka aaminsan yahay in ay wali yihiin kuwa ugu muhiimsan ee laga hadli karo arrimaha dagaal ee markaas bariga dhexe madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta la soo dhaafay u sheegay jariirada New York Post in dadkii maamulaya nidaamka Iran gabi ahaanba la baabi'iyay isagoo raaciyay in Washington ay hadda la macaamilayso dad kala duwan wuxuu sidoo kale si markaasi aan ka fiirsasho lahayn u tilmaamay inuu ka fiirsanayo in Qaliba oo markaasi ah afhayeenka baarlamaanka wadanka Iran inuu la shaqeeyo Mareykanka sida laga soo xogtay qiimeynta Yuhuudda iyo Mareykanku waxay aaminsan yihiin in hal shakhsi looga baahan yahay in Iran uu saxo markaasi heshiis magac ku yaala taas oo bal qaadaysa in la kulmo dhammaan riyooyinka Mareykanka iyo Yuhuudda ee ku aadan gudaha wadankaas Iran oo ay ku jiraan burburinta hubka awoodda leh wadanka Iran oo lagu daray in uranium ay ka sabarto xukuumadda Tehran laakiin ciidamada ilaalada kacaanka ee wadankaas Iran ayaa ku dhawaaqay inaysan gabi ahaanba aysan ka tanaasuli doonin awoodooda aysan isu dhiibi doonin Mareykanka iyo xulafadiisa Yuhuudda taas oo xaaladda markay cirka ku sii shareertay ayaa keentay in madaxweyne Donald Trump uu si dhaqsi ah uu qaato talaabooyin waaweyn oo ay ku jiraan in si weyn loo duqeeyo gudaha magaalooyinka wadankaas Iran xoogna loo adeegsado furitaanka gacanka Hormuz oo ay gabi ahaan bixirtay dowladda wadanka Iran duqeymihii kuwii ugu xooganaa ayaana saacadihii la soo dhaafay la wariyay inay ka dhaceen gudaha magaalada Tehran iyadoo la bartilmaameysatay goobaha ay dadweynaha ay degan yihiin tiro dhimasho ayaa la wariyay sidoo kalena waxa burbur loo geystay dhammaan kaabayaashii gaar ahaan wadooyinkii oo ay weheliyaan xarumihii ganacsiyada waaweyn iyo kuwa tamarta ee magaalada Tehran iyo magaalooyin kale oo ku yaala wadankaas laakiin inta Mareykanka uu duqeymaha baan ka wada gudaha wadanka Iran ayaa hadda waxa soo baxaya in Iran ay soo riday mid ka mid ah diyaaradaha horumarsan ee dagaal ee wadanka Mareykanka waa nooc la yiraahdo F-35 oo kuwa ugu weyn ee ku faato xukuumadda Washington sawirro la faafiyay iyo faahfaahin farsamo inkastoo dadka qaar aysan rumaysanayn in Iran ay awood u yeelatay soo riditaanka markaas diyaaradan
haddana khabiirada military waxay sheegayaan in Iran ay markaasi qaaday tallaabooyin waaweyn isla mar ahaantaana ay muujisay awood ay ku soo ridi karto diyaarad dagaal. war ka soo baxay dowladda waddankaasi Iran oo lagu faafiyay wakaaladda wararka rasmiga ee waddankaasi ee Tasniim ayaa lagu sheegay in diyaaradan F-35 ay ahayd kuwa markaasi duqeymo ka fulinayay gudaha waddanka Iran, waxaana soo bandhigeen sawirro muujinaya raadiga diyaaradan. Mareykanka si degdeg ah uma hadlin sheegashada Iran in laga soo rido diyaarad. ilaalada kacaanka Iran ayaana Jimcihii maanta ku dhawaaqay inay soo rideen diyaaradan dagaal F-35 oo casri ah xilli ay dul mareysay waddankaas. xarunta dhismaha Qatam al-Albiya waxay sheegtay in difaaca cirka uu soo riday diyaaradan dagaal markay dul mareysay gobolka Markazi ee bartamaha waddanka Iran. saxaafadeed ayay ku sheegtay xarunta Qatam al-Albiya in diyaaradda ay si toos ah loogu dhuftay gantaal taasoo keentay burburkeeda. bayaanka ayaa lagu duray in xoogga qaraxa uu aad u weyn yahay taasoo ka dhigaysa fursadaha badbaadiyihii wada diyaaradan inay aad u yar tahay, laakiin ilaa hadda faahfaahin dheeraad ah lagama hayo. dhinaca kalena Iran ayaa sii wada duqeymaha baan oo ay ka geysanayso wadamada Khaliijka iyo sidoo kale dhulka Yuhuudda xoogga ku haysato, iyadoo maalintii 35aad oo xiriir ah ay socdaan isku horimaadida dhinaca cirka ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Yuhuudda oo iskaashanaya iyo Iran. haddana dowladaha Khaliijka ayaa ku dhawaaqay maanta in lagu weeraray gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka yimid dhinaca waddankaasi Iran. weerarada ayaa lala beegsaday Kuwait, Imaaraadka Carabta, Sacuudi Carabiya iyo Bahrain. mas-uuliyiinta waxay markaa muujiyeen inay wax ka qabanayaan qataraha soo kordhaya, laga maarmaana ay tahay in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah si looga hortago weerarada ka imaanaya dhinaca waddanka Iran. haddaynu fiirino waddanka Kuwait, wasaaradda korontada, biyaha iyo tamarta ee waddankaasi ayaa ku dhawaaqday in mid ka mid ah warshadaheeda tamarta iyo biyaha waa kuwa biyaha nadiifiya ay gaareen waxyeelo kadib weerar xoogan oo subaxnimadii Jimcaha uga yimid waddanka Iran. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in kooxaha farsamada iyo kuwa gurmadka degdega ay la tacaalayaan inay xakameeyaan xaaladda halkaa ka dhalatay. ilaaliyaha qaranka ee Kuwait ayaa sidoo kale beeniyay warbixin ku saabsan daadashada shucaaca, iyagoo xaqiijiyay aqrinta shucaaca inay ku jirto heerarkii caadiga ahaa iyo in nidaamka kormeerka uu si caadi ah u shaqeynayo. dhinaca waddanka Imaaraadka Carabta oo ah meelaha ugu badan ee Iran bartilmaameysatay, Abu Dhabi waxay Jimcihii maanta sheegtay in dab uu ka kacay xarunta gaaska ee Habshan kadib markii weerar ugu yimid waddanka Iran. xafiiska warbaahinta ee Abu Dhabi ayaa ku waramay in mas-uuliyiinta ay qosayso ay arrintan ka jawaabayaan, laakiin burburka ayaa si toos ah u saameeyay xarumaha gaaska ee Habshan kadib markii ay markaasi nidaamyada difaaca hawada ay ku guuldareysteen inay ka hortagaan weerarka ka yimid dhinaca waddankaas Iran. aroonimadii hore ee maanta, wasaaradda difaaca Imaaraadka ayaa ku dhawaaqday in difaaceeda cirka uu ka hortagay weerar gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka yimid dhinaca waddankaas Iran. wasaaradda waxay tilmaantay in dhawaq xooga laga maqlay meelo kala duwan oo dalka, sababtan ay ahayd qabashada gantaalada balaastikada iyo kuwa cruiserka oo ay weheliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. meelaha kale ee maanta la bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah Sacuudiga. wasaaradda difaaca Sacuudiga waxay sheegtay inay qabatay oo ay burburisay 6 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn saacadihii la soo dhaafay ee maanta, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray afhayeenka rasmiga ah Major General Turki al-Maliki. wasaaraddu waxay shaacisay in la qabtay oo la burburiyay 7 diyaaradood oo kale oo aan duuliyaha lahayn, taasoo qayb ka ah bartilmaameedyada waaweyn ee ka yimid dhinaca waddankaas Iran. meelaha kale ee maanta la duqeeyay waxaa ka mid ah Bahrain. wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka ayaa soo saartay bayaan tixana ah tan iyo waaberiga hore ee maanta ayayna sheegtay in sariga digniinta uu meel walba ka dhawaaqayay, waxaana markaasi ay sheegeen inay ka hortageen weeraro ka yimid dhinaca waddankaas Iran. Iran ayaa joogtaysay inay weerarto wadamada Khaliijka oo ay u aragto inay ku saftahay Mareykanka, kuwaas oo martigeliya saldhigyada ugu waaweyn ee gobolka uu ku leeyahay waddanka Mareykanka. si kastaba ahaatee, dalka Iran ayaa u muuqda in ilaa hadda uu haysto labinta dagaalka marka la fiiriyo heerka uu gaarsiisan yahay saameynta ka dhalatay xiritaanka gacanka Hormuz. qiimaha saliidda dunida ayaa si weyn u kacay adduunka. haddii Mareykanka wax ka badan $4 halkii litir ee gaaska uu marayo, waxaa jira meelo uu gaaray 15, 11 ilaa iyo qiimo intaa ka sareeya. wadamada qaar waxay yareeyeen saacadaha la shaqeeyo si markaasi dadku awood ugu yeeshaan inay guryahooda ay joogaan. Hong Kong oo kale, halkii litir ayaa shidaalka wuxuu ka marayaa $15. Hindiya, Bangladesh iyo wadamo kale oo ay weliso Pakistan, xaaladda ayaa ku xun. waxaa taa dheer
in wadamada Yurub ay ayagana $2 ilaa $3 meelaha qaar markaa $5 ay hadda uu ku dhow yahay sicirka saliidda taasoo xaaladda ka dhigaysa mid murugo leh waxaana ay wadamadan ay ku baaqayaan in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda gobolka halkii la raadi lahaa in Mareykanku waado talaabooyin military oo lagu furo gacanka Hormuz dhammaan diblomaasiyadda dunida oo dhan ayaana go'aan ka gaaray in la furo Mareykanka Hormuz waxaana ay doorteen talaabooyin diblomaasiyadeed sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Norway waa inaanan si dhaba u eegno waxa lagu gaari karo military ahaan inta dagaalku uu socdo ayuu yiri Espen Bath Ede oo ka qayb galayay shir internetka ay kaga qayb galeen in ka badan 40 diblomaasiyadood oo markaas ka hadlayay burburka dhaqaale ee ka dhashay xiritaanka marinbiyoodkan muhiimka isbahaysigan wuxuu markaas si dheer u qotomiyay inay muhiim tahay in la aado wadada wada hadalka falooyinka waxay la mid yihiin kuwa ka soo baxay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron oo door biday in wada hadallo lala galo dowladda waddanka Iran isla markaana waxa uu soo hadal qaaday in faragelin military oo gacanka Hormuz ay keeni karto inuu ganacsiga sii xirnaado isla mar ahaantaana xaaladdu ay ka sii darto falooyinka Macron waxay jawaab u ahaayeen madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo dhaleeciyay dowladaha xulafada la ay isbahaysiga NATO ka tirsan inaysan ka qayb qaadan dagaalka isla markaana ku booriyay wadamada iskaashiga leh inay tagaan marinbiyoodka oo ay qaataan dagaal sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in go'aanada isbedelaya madaxweyne Donald Trump uu yahay kuwa aan sharaxayn xaaladda rasmiga ee gobolka ka taagan waxaana ay sheegeen in isbahaysiga NATO ay doorteen in la aado istiraatiijiyadda wada hadalka lagana gudbo suuragalnimada in xiisada la sii kiciyo wuxuu raaciyay markii Mareykanka lagu weeraray 11 September dhamaanteen waxaan u istaagnay Mareykanka mid ka mid ah xubnaheena awgeed shakina kuma jirin in aan wadajir u istaagi doono laakiin waxay wadamadan aaminsan yihiin in Donald Trump uu wato anjadiyaal kale iyagoo si weyn u duraya maamulka Yuhuudda ay ku dhaleecayeen in xasuuq baan ka geysteen wadamada markaasi ay xuduud la leh ama waddanka Falastiin oo magaalada Qasay dad badan ku laayeen si kastaba ahaatee xaaladda ayaa u muuqata mid aan deganayn iyadoo Mareykanka uu ka fikirayay in ciidamada dhinaca dhulka oo u diray waddanka Iran si ay u qabsadaan jasiirada ku yaala waddanka oo ugu yeeshaan inay furaan gacanka Hormuz waxaana laga yaabaa in arrinta ay taageero uga helaan qaar ka mid ah wadamada Carabta oo ay Imaaraadka Carabta markaa ugu horeeyaan saamaha ilaa hadda muuqanaya waa kuwa aanan u sii wanaagsanayn dejinta xaaladda inkastoo wadamada qaar ay ku baaqayaan in si degdeg ah dagaalka loo joojiyo mid ka mid ah calaamadaha dagaal ee hadda muuqda waxaa ka mid ah in markabka dagaal ee USS General Ford uu markaa ka baxay waddanka Croatia isagoo oo markaasi 5 maalmood halka booqasho ku joogay sida ay sheegeen ciidamada badda waddanka Mareykanka waxaana la cayimin halka uu ku wajahan yahay shirkadda diyaaradaha dagaalka ee waddankaas ayaa diyaar u ah howlgal buuxa oo lagu taageerayo ujeedooyinka Mareykanka oo ah in howlgal dhaba laga fuliyo waddankaas Iran shirkadda diyaaradaha dagaalka ayaa door weyn ka ciyaarta ololaha ciidamada cirka ee Mareykanka Yuhuudda ee ka dhanka Iran laakiin waxay u muuqataa inay isaga soo ruqaasdeen bariga dhexe 12 bisha la soo dhaafay isla markaana ay gacan ama ay salligteen waddanka Croatia hadda se waxay u muuqataa inay ku laaban doonaan bariga dhexe qodobkaas ayaa daawadayaal ugu dambeeyay wararka iyo sidoo kale faaqidaadooda ee caalamka ku saabsan ee Warqad TV wayna kula kala insha Allah